Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waana qaybtii saddexaad ee buugga dhambaalka dhalinyarada. Waxaa turjumay Maxamed Cumar. Waxyaabaha aan maanta ka hadlayno waxaa ka mid ah waxa ay ku kala duwan yihiin saxaabadii iyo dhalinyarada maanta, iyo qayb ka mida taariikhda saxaabada. Waxaa ka cudurdaaranayaa in aan meelaha qaar si fiican la fahmayn codkayga marka shaashada kala socda buugga. Muhiimadu waa idinku in aad wax dhagaystaan, wacyigiina dhistaan, nolosha horumarka gaartaan. Marka fadlan muuqaalka like saar, janalkana subscribe garayso. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaa codsanayaa in aad janalka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buugga aad halkan ka dhageysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalside. Marka fadlan si wacan u dhagayso buugga, waxaana ku bilaabaynaa sidan. Ogeysiis horta, ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhagaysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sarreeya dadka uu la nool yahay. Marka daawade waxaa kuu rajaynayaa in aad nogeysiiso qoto qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Ogowna haddii aad isku qancinaysi waxaan waa application, codkiisa lama dhagaysan karo, waa mid adi ku taal. Anigu waxaa u dhididayaa dadka faa'iidada raba oo raba in ay wacyigood dhisaan. 40 daqiiqo oo ay 10 bog ku akhrin lahayd kuugu bedelo 10 daqiiqo oo dhegaysiga iyo 5 bog oo hal mar ah. Mucaad iyo Mucaawid ibnu Cafraar waa laba wiil oo dhalinyaro ah oo hami weyn leh. Midka koobaad waxa uu jiraa dada 4 sano, halka midka labaadna uu jiro 3 sano. Waxa ay ka qayb galeen dagaalkii Badar. Waxa ay u muuqdeen rag ka qayb qaadan kara dagaalka, sidaas darteed rasuulku uma diidin in ay ka qayb qaataan, sidii uu Sayid ibnu Taabit ugu diiday oo kale. Labada wiil ee sidaas u dada yar hamigoodu aad ayuu u weynaa. Bal aan dhowganno oo aynu dhegaysano Cabdiraxmaan ibnu Cawf oo inooga warbixinaya sidii ay maalintaas wax u dhaceen. Waxa uu yidhi Cabdiraxmaan ibnu Cawf, aniga oo ku jira safka dagaalka waxa aan ku arkay dhinacayga bidix 2 oo wiil oo aad u dayara yar. waxa aan aad ula yaabay dagaalkan aadka u khatarta badan ee ay ka soo qayb galeen. Mid ka mida ayaa ii soo dhowaaday isiga oo iska qarinaya saaxiibkiisa kale, Mucaad ibnu Camar oo ka mida ah reer Madiina. Waxaana uu igu yidhi, adeer, waxa aad i tustaa Abuu Jahal. Abuu Jahalna waa hogaamiyaha Quraysheed ee dagaalka kula jirta muslimiinta, waana mid ka mida ragga ugu awooda badan magaalada Maka, waana fircoonkii ummaddan. Waxa aan aad ula yaabay wiilkan yar ee doonaya inuu u babac dhigo ninka noocaas ah. Waxa aan weydiiyey, adeer, maxaad ku falaysaa ninkaas? Waxa uu iigu warceliyey, adeer, waxaan maqlay in uu rasuulka caayo. Maanta meeshan ka tegi maayo ilaa aan seeftayda madaxa kaga jaro. Weligii muu arag Abuu Jahal se waxa uu aad dhibsaday warka sheegaya in uu rasuulka iscow wax ka sheeg. Waxa aan tusay oo aan farta ugu fiiqay Abuu Jahal oo dhex socda dadka. Waxaana aan ku idhi, wakaas ninkii aad i weydiinaysay. Waxa ay u baratameen oo ay u kala dheereeyeen sidii ay uga takhalusin lahaayeen ninkaas. Rasuulka wax ka sheegay. Waxa uu yidhi Mucaad ibnu Camar, waxa aan dhex galay gaaladii. Waxa aan maqlay iyaga oo isku leh, ka ilaaliya Abu Xakam, yacni Abuu Jahal. Ayayna soo gaadhin qof muslimiinta ka midaye. Waa aan u soo dhowaaday, waxa aan kaga dhuftay seeftaydii dhudhinka cagta, waana uu dhawaacmay. Macawadna dhulka ayuu ugu tuuray Abaa Jahal, fircawnkii ummaddan. Isiga oo dhaawac liita ah ayaa waxaa dulyimi Cabdullaahi ibnu Mascuud, nafta ayuuna dhaafiyey. Waxa ay u yimaadeen rasuulka mid kasta isaga oo sheeganaya in uu dilay Abuu Jahal.
rasuulku waxa uu ku yidhi, miyaad ka masaxdeen dhiiggii seefihiina? Waxa ay yidhaahdeen maya. Waxa uu ku yidhi rasuulku, suu ii kaana. Waana ay u keeneen. Rasuulku suu. Waxa uu ku yidhi, labadiinuba waa aad disheen. Waa kaas hammigii dhallinyaradaasi iyo tartankay ugu jireen difaaca diintooda iyo ummadooda. Usaame ibnu Sayid. Usaame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada taariikhda islaamka baalka dahabka ka galay. Dhammaanteen waxa aynu ka dheregsanahay mowqifkii aad u weynaa ee uu sameeyey Usaame dagaalkii dhex maray muslimiinta iyo Roomaanka. Inta aynaan ka faaloon dagaalkaas maaha sayid markii koowaad ee uu ka qayb qaato duulaannadii ay muslimiintu la galeen gaalada. waxa uu ku lahaa kaalin weyn oo uu kaga qayb galay furashadii Makka isiga oo daahaan jira 4 sano. Usaame waxa uu ahaa shakhsiyaad mug iyo miisaan ku dhex leh saxaabada ay gaadheen saxaabadu haddii ay rasuulkaasba wax ka doonaan in ay Usaame u sii mari jireen. Waxa uu ka qayb galay Usaame duulaankii Muraysiya, waana duulaanka ay ka dhacday dhacdadii been abuurka ahayd ee loo geystay hooyadeen Caaisha, ee ay hoos ka gaaladu munaafiqiintu ku sheegeen in ay samaysay xumaan. Dhacdada oo uu aad ugu murugooday rasuulkus uu isiga oo aan bil dhan aan wax quraan ah soo degin. Waxa uu galay rasuulkus xaalad aad u adag, waxaana uu la tashaday 2 ka mid a asxaabtiisa oo kala ahaa Usaame ibnu Sayid iyo Cali ibnu Abi Daalib. Waxa aad halkaa ka dareemaysaa heerka uu ka joogay Usaame. Rasuulkaas uu agtiisa iyaga oo ay joogaan saxaabadii ka waaweynayd. Haddana waxa uu kala tashanayay rasuulkus uu qisadan aadka u xanuunka badan ee ay ku been abuurteen sharafta hooyadeen Caaisha. Allah ha ka raali noqdee iyada oo Allah quraan ku bari yeelay. Waxa uu rasuulkus intii aanu dhiman uu dhiibay in uu hogaamiyo dagaalkii muslimiintu la galeen Ruum. Waxa uu hogaamiye ka ahaa dagaalkaas isiga oo 8 sano jir ah. Waxaa ku jiray dagaalkaas halyeeyo geesiyaal, naftood hurayaal, soo majeestayaalka ku caanbaxay xeeladaha dagaalka. Waxaa ku jiray raggii islaamnimada uga soo horeeyey. Haddaba su'aashu waxay tahay, muxuu rasuulkus ugu dhiibay hoggaanka dagaalkaas Usaame? Miyayna joogin Madiina rag ka fadli badan Usaame? Jawaabtu waa iska caddahay, wayna iska muuqataa. Madiina waxaa joogay rag ka fadli badan oo ay ka mid yihiin Cubayda ibnu Jaraax, Khaalid ibnu Waliid, Subayr ibnu Cawaam. Sababta uu rasuulkus uga hormariyey Usaame waxa ahayd in uu doonayay in uu muujiyo kaalinta ay dhalinyaradu ku leeyihiin islaamka iyo in la soo bandhigo awooddooda. Waxa uu awood u yeeshay Usaame in uu hogaamiyo dagaalkaas ay ku jiraan geesiyaal ah. Dagaalkaas aad u culus waxa aynu ka qaadananaa ciidankaas uu hogaaminayay Usaame uma soo bixin arrin yare waxa uu u soo baxay in dagaal uu la galo dowladdii wakhtigaas ugu xooga badnayd adduunka. Rasuulkus waxa uu ogaa in uu hogaamin karo dagaalkaas, awoodna u leeyahay ka soo bixidda xilkaas aad u weyn. Usaame waxa uu ahaa mid leh tababar ciidan, fardo fuulnimo, awood hogaamineed iyo mid maamulba. Innaga oo og ninkaas dhallinyarada ah muu ahayn sida ay yihiin dhallinyaro badan oo maanta nool oo hamigoodu yaha xaqiijinta hadafyo yaryar oo aan macno buuran u samaynayn nolosha. Waxa uu ahaa nin nolol caadiya isiga nool aabbihiis. Waxa uu ahaa adoon uu rasuulka uu xoreeyey oo lagu kala iibsado suuqyada. Usaame muu ahayn nin ka soo jeeda qoys ladan waxa uu ka soo jeeday qoys danyar ah. Manuu dhalin nin amiir ah, manuu ahayn nin qurux badan waxa uu ahaa nin ku soo koray nolol saboolnimo ah. Halkaas waxaa inooga muuqanaya in ayna nolosha wax macno buuran ah u samayn in aad tahay hodan ah iyo in aad sabool tahay midna hamiga aad leedahay iyo in aad ku qanacsanaanta diintaada iyo inta ay leegyahay hamigaaga diimeed ay nolosha macno u samaynaya. Kumuu gaadhin Usaame qabiil iyo maal toona. Waxa uu yidhi rasuulku
rasuulka isagoo ayaa diray Usaame ibnu Sayid isigoo amiir ka ah dagaalka. Qaarka mida ayaa waxa ay dureen oo ay wax ka sheegeen amiirnimada Usaame. Markaas ayuu nabigu yidhi, haddii aad wax ka sheegtaan waxa aad wax ka sheegteen aabihiis. Alle ayaan ku dhaartay Usaame waxa uu ka mid yahay dadka aan dadka ugu jecelahay. Halkaas waxaa inooga caddaanaya booska ay ka joogeen dhalinyaradu Islaamka, kor u qaadkii Islaamka iyo ummadda muslimiintaba. Maxaynu ku kala duwanahay? Waa in aan si dhaba isweydiino maxay u kala duwanahay. Maxaa ku kala duwan tahay taariikhda aan soo aragnay iyo midda aan maanta ku dhex noolnahay? Halkee ayay ku jirtaa dhibaatadu iyo dib u dhaca ummadda Islaamku? Waa dhibaatooyin isdulsaaran. Dadka qaar waxay khalad ka saaraan dhalinyarada oo qudhase, laakiin waa dhibaatooyin isdulsaaran oo ay sababeen dhibaatooyin ku habsaday ummadda Islaamka ah. Waxa ay u baahan tahay dhibaatada baadhitaan xeel dheer oo aynu ku raadinano xalka dhibaatadan. Dooni mayno in aynu ku lumino waqti badan isweydiinta su'aalahan, laakiin waxaynu xusi doonaa qaar ka mid a waxyaabaha sababay dhibaatooyinkan. Sababta hal aad maqnaanshaha barbaarintii Islaamka. Maqnaanshaha barbaarinta Islaamku waa mid ka mid a sababaha keenay dib u dhaca kaalinta dhalinyarada. Waa sababta keentay in ay ka hoos maraan booskii ay mudnayd in ay ka galaan nolosha. Raggii aynu soo xusnay waxaa gaadhsiiyey booska iyo kaalinta ay ku lahaayeen kor u kaca baaqa Islaamka. Waxaa sababay waa in ay ku barbaareen tarbiyada Islaamka. Barbaarinta Islaamku waa midda samaysay Usaame. Waa midda samaysay Camar ibnu Cafraa. Islaamku waa mid ka soo burqiyey awooddii dunida isbeddelka ka samaysay. Islaamku waa midkii ragga taariikhda baalka ee dahabka ah ka galay soo saaray. Ummadda Islaamku waxa ay noqotay waayahan aynu noolnahay mid ka luntay jidkii iyo waddadii Alle u jeexay si ay adduun iyo aakhiraba u guulaystaan. Dhalinyarada iyo faca koraya hadda waxaa lagu barbaariyaa tobanaan manhaj oo aan ahayn midka Islaamka. Markaas ayay ummaddu weyday sirtii guusheeda. Waxa ay ka luntay waddadii hanuunka iyo wanaagga. Markaas ayay ku noolaatay nolol ciidhiidhiya oo ah miduu Allah Qur'aanka ku xusay. Cidda ka jeedsata xuskayga waxaa u sugnaatay nolol cidhiidhi ah. Kuma ay dadaalin tarbiyada iyo barbaarinta garab marsani Islaamku in ay soo saarto fac dareensan oo ku baraarugsan in mar kasta iyo meel kastaba in uu Allah daalacanayo fal kasta oo ay samaynayaan. Waxa ay soo saartay fac iska dhowra indhaha macalinka iyo waalidka oo aan iska dhowrin isha Allaha oo arkaysa lana socota xilli iyo xaal kasta oo ay ku sugan yihiin. Haddii ay ka qarsoomaan indhaha dadka waxa ay samaynayaan wax kasta oo ay jeceshahay naftoodu awooddooda oo dhan waxay u adeegsanayaan in ay dumiyaan jiritaanka ummadooda beddelka xaggii ay ka dhisi lahaayeen. Waxaa ka dhashay markii lagu barbaariyey manaahijtaas aan ahayn midda Islaamka in ay faca koraya ee Islaamku ay noqdeen kuwo aan dareen iyo xidhiidh adag aan la lahayn kitaabka Qur'aanka iyo sunnada rasuulka iscow. Qur'aankii waxa uu noqday maado ka mid maadooyin lagu qaato goobaha waxbarashada. Waxaana ay ka madhan yihiin maadooyin lagu bartaa goobaha waxbarashadu barbaarinta iyo in ay soo saaraan qof muslim ah oo dhan walba ka dhisan. Middaasina waa ilaa heer jaamacadeed. Uma jeedno in aynu ku barbaarino faca koraya iyo dhalinyarada in ay ka dheeraadaan adduunka ayna ka shaqaysan. Waxa aan u jeednaa in aynu saxno fahanka ay ka haystaan adduunka oo ay ogaadaan in uu Allah markasta ka warqabo xaalkooda uuna yahay midka adduunkan oo dhan iska leh maamulana kuna tasarufa oo kolba sida uu doono u gadgadiya uuna yahya Allaha nool nolol aan xad iyo xuduud midna lahayn, nool nolol aan dhammaad lahayn. Waa in ay dareemaan dhalinyaradu in ayna cidka ka qarsoomin karin isiga oo ay hagaajiyaan gudahooda sida ay u hagaajinayaan intooda muuqata oo ay u shaqaystaan maalinta ayna murugadaan waxba tarin oo ay Allah caabudaan iyaga oo aan marna ka daalayn in Allah raaligeliyaan. Waxaa lagama maarmaan ah in aan isweydiino muxuu Allah ii abuuray. Isweydii mar labaad su'aashan. Sida aad uga jawaabto su'aashan ayuu ku xidhan yahay masiirka noloshaada adduun iyo aakhiraba. Malaayiin dhalinyaro muslimiin ah isma weydiiyaan su'aashan.
allah waxa uu ku leeyahay qur-aanka, ma waxa aad u malaynasaan in aan idiin abuurnay dheeldheel oo aan xagaya laydiin soo celin doonin? ma waxa uu allah inoo abuuray in aynu iska raaxaysano adduun? mise waxaa laynoo abuuray in aan iska shaqaysano oo qudha oo aan xoolo urursano? mise waxaa laynoo abuuray in aan allah casino oo aan amarkiisa jebino? waxaas oo dhan allah inoomuu abuurin waxa uu inoo abuuray yool cad oo aan qarsoonayn. uma suubanto allah xikmada badan in uu inoo abuuro arrimahaas liita. allah waxa uu ku caddeeyey qur-aanka ujeedka ka dambeeyey in ibnu aadanka adduunkan la keeno. bal u fiirso, allah waxa uu inoo abuuray ujeedo cad oo ah in aan isiga oo qudha caabudno sida uu allah qur-aanka ku caddeeyey. umaan abuurin jin iyo insi in ay ii caabudeen mooye wax kale. haddii aanad xaqiijin ujeeddada adduunka lagu keenay, maad xaqiijin ujeeddadii aad adduunka u timid. cibaadada macnaheedu waa in aad allah si dhaba ugu hoggaansanto qowl iyo ficil labadaba, adiga oo allah jecel qaadanayana amarkiisa xaalad kasta oo aad ku sugan tahay iyo meel kasta oo aad joogto, lagana dareemo hab u dhaqankaaga, akhlaaqdaada iyo dad la dhaqankaaga mar kasta in aad allah amarkiisa qaadanayso goob kasta iyo goor kastaba. haddii aad caafimaad qabto, haddaad baam tahay, haddaad degan tahay, haddaad safar tahay. cibaado maaha salaad, soon, sako iyo xaj qudha. intaasi waa inta ugu waaweyn, manaha in aad allah sannado badan caabudasay cibaadadu waa nolosha oo dhan. marka cibaado laga hadlo, dadka badankooda waxaa ku soo dhaca yaabo gaara iyo wakhtiyo gaara. fahankaasina waa faham qaldan. cibaadadu waa goor kasta iyo goob kasta, kumana koobna meelo gaara sida masaajida. alle inoomuu abuurin in aan dayacno wakhtigeena qayb ka mida, dhammaan wakhtigaasna waa laynaga xisaabimayaa. wax kasta oo aan samaynayna waan arkaynaa. allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay, qofka sameeya wax ili qabato waxa leeg oo wanaaga waa uu arkayaa, sidaasoo kale midka sameeya intaas in leeg oo xumaanana waa uu arkayaa. allah waxa uu inaga xisaabinayaa maalinta qiyaame wax kasta oo aan samaynay. haddii ay wanaag yihiin, wanaag ayaa laynagaga abaalinayaa. wax kasta oo aad ku hadashay intii aad qaangaadhka ahayd waa lagu qoray dhammaan. waxa ay odhan doonaan dembiilayaashu maalinta qiyaame, waa maxay kitaab kan aan waxba ka tegine wax walba koobay? wax kasta oo ay shaqaysteen waa ay helayaa. ilbidhiqsi kasta oo aad adduunka joogtay waxaa laga weydiinayaa su'aal. allah waxa uu leeyahay isiga oo la hadlaya rasuulka sow, waxa aad tidhaahdaa nebi maxamedow, salaadayda, gowracayga, noloshayda, dhimashadayda waxa ay u sugnaatay oo iska leh allah oo ah rabbiga caalamka oo dhan. waxaa habboon oo ay tahay in aan nolosheena oo dhan u jahayno dhinaca allah, oo wax kasta oo aan qabanayno aan u qabano dar alle. haddii aad nooshahay, dar ulle u noolow. haddii aad shaqaynayso, dar allenimo u shaqayso. aayaadka iyo axaadiista ku soo aroortay mawduucan aad ayay u badan yihiin, lama soo kaabi karo. qofna qof kale ka qaadi maayo waxa uu shaqaystay, adiga ayaa lagaa xisaabinayaa. naf kasta waxa ay u xidhan tahay waxay camal fashay. cidna maalintaas dhinacaaga ma taagna, waalid iyo saaxiibtoona. alle waxa uu ina leeyahay, waxaannu idin keeni doonaa idinka oo keli ah, sidii aanu idiin abuurnay markii horeba. ilbidhiqsi kasta oo ka dayacanta noloshaada waa lagaa xisaabinayaa. waa in aad wakhti kasta ogootaa in allah ku jeedo dembiga aad samaynayso, cidina kaa qaadi mayso. waxa ay ku yidhaahdeen kuwii gaaloobay, kuwii alle rumeeyey waddadayada soo raaca, aanu dusha u ridano dembigiina mana aha kuwa dembigooda dusha u ridanaya waxba, waana beenaalayaal. kuwa kuugu yeedhaya fasaadka iyo dariiqooyinka xumaanta dembigaaga waxba kaa qaadi mayaan, adiga ayaa lagu xisaabinayaa maalinta qiyaame. alle waxa uu ku siiyey garaad aad ku kala garato wanaaga, xumaanta iyo awood aad waxna ku dooni karto, waxna ku diidi karto. allah waxa uu leeyahay, waxa aanu ku hadaynay labada wado, midka wanaaga iyo midka xumaha. haddii ay dhammaatay dhallinyaronimadaadii,
adiga oo ka fog jidka saxan ee aanu Allah ka raalida ahayn oo aad ku qarqoontay oo aad ku haftay mawjadaha macaasida oo aanad waxyool ah ka lahayn noloshaada. Dabadeedna Allah kugu soo hedeeyey waddada wanaagga iyada oo ay dhammaatay dhallinyaranimadaadii qayb ka mida amaba dhammaanteed, ayaa kuu soo celinaya. Waa sunnaha nolosha in ayna soo noqon qayb ka mida noloshaadii oo dhammaatay. Ka faa'iidayso dhallinyaranimadaada. Waxa uu rasuulku xadiis ku leeyahay, 5 ka faa'iidayso inta aanay 5 kugu iman. hal dhallinyaranimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin. 2 caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad xanuunsan. 3 hodantinimadaada ka faa'iidayso in aanad sabool noqon. 4 firaaqadaada ka faa'iidayso inta aanad mashquulin. 5 noloshaada ka faa'iidayso inta aanad geeriyoon. Xadiisku waxa uu ka mid yahay xadiista lagu tilmaamo in rasuulku isku erayo yaryar sheego, laakiin macnaha iyo mucda ay xambaarsan yihiin aad u xeel dheer yihiin, kelmad kastana u baahan tahay fahan aad u xeel dheer. Qofku waxa uu fahmaa qiimaha ay dhallinyaranimadu leedahay marka uu weynaado ee itaalkiisu soo gaabto. Caafimaadka waxa aad dareemaysaa maalinta aad saaran tahay joodariga firaashka geerida. Hodantinimada waxa aad dareemaysaa maalinta aad sabool noqoto. Qiimaha wakhtiga waxa aad dareemaysaa marka ay saacadaha iyo sannadadu ku soo maraan adiga oo aan waxba qaban, noloshuna macno la'aan kaa noqoto. Walaalkayga iyo walaashayda dhallinyaradahow ayaa kuu soo celin kara haddii uu ku dhaafo wakhtigaas qaaliga ah. Geeridu waa kadis dhallinyaranimo waad ku geeriyoon kartaa. Geeriduna cidna ma sugto. Dhalinyaro iyo gabow taano ma taqaano. Ka faa'iidayso kaanshada fursadda inta aad nooshahay, haddii kale hadhow ayaad murugoon doontaa wakhti aanay murugo waxba qaban doonin. Halkaas ayay ku eg tahay qaybtii 3 ee buugga dhambaalka dhallinyarada. Walaahi weli ma soo gudbin buug ka cajiibsan oo ka waxtar bardan. Fadlan la soco qaybaha dambe ee buugga haddii aadan kuwii hore soo dhegisana buugu wax macno ah kuma samaynayo. Walaahi ma qiyaasi kartid dhibka aan ka maro in qaadi wax ku taro oo muuqaal ku soo diyaarsho. Fadlan muuqaalka ii sheer garee, like-na saar, channelkana soo subscribe garayso. Mahadsanid. Assalaamu calaykum.